وحفيصل علي ورابي ويدين وشيديي مدحوينياشا دولة فدرالك الصومالية iyo Puntland xamar waxay doonaysaa inay remote nagu disho oo isticmaasho dowlad goboleedka Garowe reer dowlad waxaan sheegayaa yaalin soo diray inaga isku xuduuda inaga ehla inaga xad wada leh xasan sheekh maxamed haduu lacagdi soo siiyo soo ku dhiman maayo waxa isku dhimanaya waa inaga ma waxa leeyahay aqal hala keeno abdiwalowna waxa leeyahay hadda professor tahay professor de warlord ma noqdo hanjabaysana waxa ka fiicnaa oo afnaanta ku hadlay hanjabaad way Soomaaliya ka dhamaatay wuxuu isagu dowlad goboleed sheeganaya ayuu 46 wasiir sameeyay أنا waxaan arkay dawladda sameeyay dawlad aan ahayn Garowe ma bukeedii dawlad dagaal tahay war cabinet uu sameeyay qabiil ku saabsan dagaaladii qabiilka koonfurta ay ku kala carfa qaadeen ayuu doonayay maanta Soomaaliya iyo ka dhax bilaabo dadka walaalahay magaalada ay deegaan gobolada ya marka waxaan leenahay nin dagaal ku baaqay Hitler baa hordambeeyay horiyad galansa musalliina baad ogtahay hal ku dambeeyeen ودودو ده همري يا عبد الولو Soomaali dhibaato u keenay Soomaali dhibaato u bilaabay ana waa iga dardaarna odayaan hay maanta inta siyaasad ku jiray waxaan socdaa ee ka socda access-kan Garowe iyo xamar ka socda ee Soomaaliya ku wajahdan wala nagu khasaara lanaga ma faa'iido lana waan dadka oo sameynaa dadka oo fiican anaga isku xidhan dadka oo fiican ma waxaan leenahay ninka isaysan waa aniga abdul ninka maanta iska hor imanaysan diyaar garow hadaad wanaag diidin ana tuusan soo xiranaya